munaasabadan oo ahayd mid casho sharafa isla markaana tacsiil loogu diriyay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya marxuum Cabdirasaaq Xaaji Xuseen oo dhawaan ku geeriyooday magaalada Minneapolis ee dalkaasi Mareykanka ayaa waxa ay habeenkii xalay ahaa ka dhacday xarunta madaxtooyada Soomaaliya waxaana ka soo qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud gudoomiyaha baarlamaanka ra'iisul wasaaraha xukuumadda ra'iisul wasaare ku-xigeenka madaxweynaha Puntland hogaamiyaha maamulka Jubba ra'iisul wasaarihii hore Cali Maxamed Geedi madaxweynihii hore Puntland General Cadde Muuse Xirsi wasiiro xildhibaano ka tirsan baarlamaanka wafdi ka socday maamulada Puntland iyo Jubba iyo madax dhaqameed Soomaaliyeed waxaana loogu duceeyay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya marxuum Cabdirasaaq Xaaji Xuseen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ugu horeyn goobta hadal ka jeediyay ayaa ku tilmaamay marxuumka inuu ahaa shakhsi ku dayasho mudan oo waqtigiisa inta badan ku bixiyay sidii loo heli lahaa wadajirka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. anigu waxaan leeyahay waa murugo iyo xanuun badan iyo qof qaali ah oo dalka iyo dadka dhan qaali ku ah oo naga baxay laakiin xanuunkaas iyo murugadaas ma u bedeli karnaa fursad aan uga faa'iideyno dadka Soomaaliyeed fursad aan dhihi karno xaajadan quruxda badan ee dhacday waxay soo bilaabatay Allah u naxariistay maxaan ku raadaa geeridii ama muxuu duugti ama xabaashi Cabdirasaaq ka soo bilaabatay ma dhihi karnaa oo taariikh sidaas ah ma bilaabi karnaa hadii alla yiraahdo waxaan islaahay waan bilaabi karnaa waan isla joognaa waan isu nimaday dad badan oo mudnaa inay isu yimaadaan ayaa caawa isla jooga dabcan in kaloo badan oo mudan inay nala joogtana way naga maqan tahay duruufaha maxaan ku raaddaa u gaarka iyo kuwo badan dalka ka jira awgeed marka ducada ugu fiican iyo abaalmarinta ugu fiican ee Cabdirasaaq aan u sameynaa Allah u naxariistay waa waxa ka dhasha isu imaatankan aan isugu nimiday muxuu duugtiisa hadii alla yiraahdo haddii aan meesha ka ambaqaadno oo aan isu imaatankeena soo u sii wadno oo isu imaatanna kale ay ka sii dhashaan oo aan maxaan ku raad inta naga maqana markale intaan u yeerano aan bal mar kale aan muxuu ahay gelino tamar iyo energy aan gelino midayntii dalka iyo soo celintii dawladnimada iyo karaamadii iyo haybadii ummaddaana ay lahayd annay mudan tahay inay lahaato waxaan isleeyahay waxa wax ugu fiican Cabdirasaaq aan uga abaalgudnaa ama ku ammaanna ama ku abaalmarinaay waa intaas sidoo kale munaasabada intii ay socotay waxaa hadallo kooban goobta ka jeediyay madaxweynaha Puntland Mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ra'iisul wasaaraha xukuumadda Mudane Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari ra'iisul wasaare ku-xigeenka madax dhaqameedyo iyo hogaamiyaha maamulka Jubba iyagoona dhammaantoodba ka tacsiyadeeyay geeridii ku timid Allah u naxariistay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya marxuum Cabdirasaaq Xaaji Xuseen waxaan aad u mahadnaqayaa madaxweynaha cashada sharafta badan ee uu noo sameeyay lagu xusayo kuna inuu moranayo tacsi iyo waxaan u dabaaldegaynaa waa taariikhdiisii weeye Cabdirasaaq Xaaji Xuseen waa qofka uu ahaa waa shakhsiyadda uu ahaa waa wuxuu Soomaali galay waa wuxuu soo qabtay marka taas ayaan waxaan isleeyahay ayaan u dabaaldegaynaa ma aha qofku bini'aadamkaahi waa u dhimanayaa kullu nafsin daa'iqatul mawt waana qof bini'aadan intuu noolaan karo Soomaali noolaan karo waa noolaaday Mudane Cabdirasaaq wuxuu ahaa nin markuu noolaana talo curiya hadda oo dhintayna aan u malaynahayo in geeridiisa intaan talo ay u dhalatay oo geeridiisuna ay keentay in talo Soomaaliyeed ay dhalato sababtu waxaa weeye intaan isu imaatinkeeda arrin runtii horey u dhici jirtay ma ahayn Allah u naxariisto walaalkeen ama waalidkeen ama halgabaheennii aan hadda meydkiisa sugeyneen aan sayno waa mid aan marka hore u baahnay inaan horta kulligeen ku wada sabiro una ducayno eheladiisiina si gaara aan sabirsiin ugu diro innaguna aan sabirka isfadno waxaa intaa raacay ammaan badan iyo waxa uu soo qabtay iyo waxa uu taariikhda ku soo lahaa iyo halhayskiisii Cabdirasaaq Xaaji Xuseen
aniga waxaan ka mid ahaa dhalinyaradii ku mudaaharada jirtay markuu prime minister-ka ahaa dhalinyaraan ahaa waxaan ahaa sindikaatada macallimiinta waan ku mudaaharada jirnay aniga aadan maxamed cali cumar alteesa dad badan markuu nagama caroon jirin waa noo soo degay waa noo imanay khudba noo akrinay waa noo caqliyeyn jiray gabagabadii xafladda ayaa loogu duceeyey marxuumka iyagoona eebbe uga baryay inuu jannadii firdowsa ka waraabiyo eheladii asxaabtii iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeedna samiriye iimaanka siiyo maxamed bile geelle somsat magaalada muqdisho.